Life is not easy at all. noloshu way caqabo badan tahay taasoo keenayso caqabadahaas ilaa dhulka ku geliso. Marka kulanti haboon kuna soo dhawaada channelkeena Maskaxda Fur Media. Maanta waxaan ka hadlaynaa nolosha caqabada badan ee leedahay iyo sida looga bixi karo. Haddii nagu cusub tahay nagu soo biir walaal. Wixii like iyo share iyo comment-yana waa xaqiina. Anaga dhiirigelinayna oo tahay waana ku mahadsantihiin walaalayaal. Nagu soo celiya mawduuceena. nolosha horta markii lagu dhawo noloshu way caqabo badan tahay waana run waxay ku caqabo badan tahay horta Ilaahay wuxuu yiri walaqad karamna bini'aadama bini'aadamka Ilaahay wuu karaameeyay qof walba qof aan waxba aqoonin ma jirto qof walba Ilaahay aqal iyo siiyay garaad oo siiyay alxamdulillah inaa ku shukrididna waayo wadada ugu koowaad caqabadaas horta looga bixi karo waa wadada Ilaahay kow taasoo horta kuwa ina Ilaahay ku xirnaatid subax walba horta markaa soo kacid qof walba muslim horta waa alxamdulillah dhaha waa ina Ilaahay ku shukrisaa taas kadib ku horta adiga nolosha adiga maxaa ka aaminsan tahay maxaa damacsan tahay waayo walaal horta noloshaada maanta cidna ku bedeli mar karto adigana ahayn noloshaadana sidee ku bedeli kartaa waxyaabaha mararka qaar ugu fiican waxa waaye waqtiga la qaadanaysid maskaxdaada علشان maskaxdaada marka ku dhahayo Ilaahay qof bilaadan oo ka dhigay uu ku karaameeyay qof aqal laho karaamo leh tahay inaad fikirtid fikirkaas oo inaad ka adkaatid horto caqabadaha nafsada ay leeyihiin taasoo kamid shahawaadka waa inaad ka adkaataa dareenkaaga marka ku leeyahay horto nafta meel fiican kuma jiheyso waayo naftu wixii xun bay rabtaa waxaas xun horta maanta ma jirto qof oo horto inta bilyaneerka xataa badana aragtid qof maanta qof walba hoos ka soo bilaabay wuxuu ugu bilaabana waxa waaye waxay ka adkaadeen kaliya shahawaadkan nafsadooda dareenkaas oo macnaha marka ina macnaha dareenkaaga ka adkaatid controlshid istaagtid fikirtid dhahdid horta aniga yaa ahay su'aashaasna horta marka adiga ahaantaada isweydiisid horta su'aashaas isweydii horta adiga yaa tahay waayo hadda adiga yaa tahay haddaad tiraahid magacaaga iyo waxa iskugu wicaysid lagu bixiyey ma aha adiga qof hami leh ma tahay horta hamigaagana sidee kugu hirgeli karaa waa inaad shahawaadkaaga ka adkaatid naftaada ka adkaatid naftii wixii ay rabtaa u diidid waayo qof walba nolosha caqabad badan ay leedahay ee dhulka kugu gelinayso waxa kamid shahawaadkaaga yaa raacaysid iyo xanuunyo badan oo macnaha nafsad ahaantaada goonidaada ku haysto oo cidna aan la wadaagi karin oo laakiin mar walba xanuun iyo murug kugu reebayso marka murug walba iyo xanuun walba oo soo maro wuxuu kaaga tagtaa hadiyadaasna waxa fahmi karo qofka kaliya garaadka leh waayo qofka garaadka leh xanuunka markuu ku soo maro horta waa inaad fikirtaa oo istiraahid horta see ugu bixi karaa masaan baa ku jira may waa inaa kacaa la timaadid hamigaas oo hami weyn aan gaari karin waayo wax walbo wax raadisid waa hele laakiin horta wadadaas caqabooyin badan ee leedahay caqabooyinkaas oo ina horta waxay u baahan tahay go'aan adag ina la timaadid go'aankaas adag la timaanaysid horta ku horta noloshaada waa inaa muuqif u yeeshaa qorshe la imaaw qof bilaadan ta aqal Ilaahay ku siiyay wax la timaad ma weyn kartid saa aniga aaminsanahay kulay toba adiga bas aaminsan tahay marka noloshu waa inaa horta fikirtaa waqti qaadataa nafsadaada horta wax ugu fiican inaa waqti la qaadatid meel gooniya kaliya cidla joogtid bal fikir horta isweydii yaa tahay maxaas u baahan tahay booskana hadda taagan tahay ma ku haboon tahay noloshaana hadda ku jirtid ma ku qanacsan tahay dabcan haddii aan ku qanacsaneen qof walba caqabada haysato caqabadaas oo qof walba gooni u haysato caqabadooyinkaasna badanaa waxaa looga hor imaan karaa qofka horta maskaxdiisa degan inuu fikiro teeda kalena allana isku xiro allana marka isku xirtid kadib inaa go'aan aad iyo aad u adag yeelatid
nolosha mararka qaar waxay ku gelinayaan dhulka ma ahan laakiin inaa macnaha jaranjarada hadda tusaale wax yar aa kuu soo qaadaa tusaale yar oona ah wax weyn tusaalahaas waxaa ka mid ah suuliga markaad u baahan tahay ama dabcan musqusha kolley tasaa filaayo suuliga kuuma imaanaysa ama musqusha kuuma imaanaysa adaa aadaysid taasna waxay ula jeedaa calashaan wixii adiga leedahay hamigii inaa ku horto adiga dabakacdid dabcan xatee warqad soo qaado ku qoro waxaa rabtid inaad noqotid ha baqin qofna kala tashan noloshaadii adaa bedeli karta cidna kuma bedeli karto sababtoo ah waxaa ku bedeli kartaa go'aan adag kow inaad la timaadid hami weynna markaa dhahayo hami yar iyo waxaan ma ahan wax weyn aadna gaari karin ama aa isleedahay ma gaari kartid laakiin nafta adigii kalsooni inaad gelisid oo dhahdid may waa gaari karaa qofkaas bilyaneerka ah hoosuu ka soo bilaabay maantana waa kaasaa bilyaneer waay laakiin adiga laftirkaaga inaad fikirtid walaal oo waqti qaadatid noloshaada ka fikirtid oo calashaan marka aad soo kacdid ilaahay baridid maalin walba xataa warqad haddaa meel ku qoratid oo maalin walba subax walba aad soo kacdid fiirisid laakiin inaad fiirisid oo ka tegtid ma aha waayo maalin walbo waa soo kacdaa hadda badanaa hadda dadka waxay ku badan yihiin social media qof walba markuu soo kaco dabcan saa u wada badannahay qofka xataa intuuna caday aadin laga yaabo mobilkiisa horta inuu la soo baxo mobilkiisa hadduu la soo baxo waxyaabo badan oo aadayo waa social media adiga walaal qofkan aad fiirsanaysid waa qof adoo kalaa wuxuu sameeyey ma samayn karin weyn laakiin asiga caqliga oo la imaaday keliya waxaa waaye fikirkaas uu fikiray iyo macnaha siduu isku bedeli lahay walaal adiga laftirkaaga waa awoodaa weliba 100% wadadaasna haddaa qaadid way caqibo badan tahay caqibadaas oo zaa'id ah hadda dabcan ka soo qaad jaranjaro marka aad rabtid inaad fuushid haddaa ka dhacdid ma ahan inaad fuuli weys jaranjaradii waa ka dhacday waa istaagi haddana waa fuule waa fuushay marka haddaa tiraad laakiin waa dhacay ma fuuli kari waxaa marka adigii noloshaadii moraal dhan ma yeelanayso waa noloshiina horta moraal isku yeeshid karti isku yeeshid go'aan gooniya yeelatid tan iyo kulanti dambo iyo muuqaal xiiso dambo fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like garee siyana share garee wixii aragti gooniyana commentiga nogula soo wadaaga wassalaamu calaykum waxaan iga tegay nabadgelyo ilaahay hana ilaaliyo walaal